hay-adda Khadija Foundation oo ka shaqeysa horumarinta dadka abaaruhu barakiciyeen iyo waliba dadka jilicsan ayaa go'aan ku sameysay afar masjid oo ku yaala deegaamada gobolka Togdheer si kor lagu qaado bilicda masaajidadan oo kala yaalay deegaamada Ceegbilcil Jamacad Caynaashe Bal Sugul iyo Cali Ciise ayaa waxa sharaxaad ka bixiyay daryeelkii lagu sameeyay Maxamed Xamari oo kamid ah mas'uuliyiinta hay'adda Khadija Foundation. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 27/4/2019 بعون الله نحمد الله ونشكره على ما توفقنا عليه بفرش 4 مساجد. أولهم كان في علي عيسى، ثانيهم كان في بل سقله، ثالثهم كان في جماعة عيناشة، رابعهم كان في عيل بالعلة. هذا هو المسجد الأخير الرابع اللي فرشناه، شايفين حلاوته وجماله يعني ما شاء الله. نشكر كل من ساهم فيه وخاصة أم محمد، بارك الله فيك، الله يجعلها في ميزان حسناتك ويوفق لك أولادك ويستر عليك وييسر لك أمرك. شكرا جزيلا. geesta kale bulshadan ku dhaqan deegaamada Ceegbilcil Jamacad Caynaashe Bal Sugul iyo Cali Ciise ayaa soo dhaweeyay masaajidan ay hay'adda Khadija Foundation ay ku sameysay daryeelka xilligan aynu ku jiro ay maalmo yar naga xigaan bishii barakaysnayd ee Ramadaan. ma aha markii uu horeysay hay'adda Khadija Foundation ay daryeel ku sameysay masaajidda ku yaala deegaamada gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland.